Buweyne Mahdi haatan waxaan ku sugannahay galbeedka magaalada Qardho barta ay kaga taal xerada tababarka ciidanka ee Xorgoble Qardho oo kadib dayactir dhismeed iyo mid agaba dib loo furay dabayaaqadii sanadkii hore ee 2019 haatan waxay feercelin uga socotaa 3 urur 13aad 12aad iyo 3aad oo markii lagu mideeyay xerada waxaa loogu magac daray ururka Badar oo ah urur in badan ka shaqeeyay difaaca kayga Puntland. Ururka Badar oo weli tababar uga socdo xerada tababarka ee Xorgoble Qardho waxay ka qayb qaateen badbaadinta shacabka magaalada Qardho kadib markii ay soo rogmadeen daadad xoog leh oo geystay khasaare naf iyo maalba leh. Ururka Badar waa dafcadii labaad oo goordhow lagu taamayo in loo soo afmeero tababarkoodan feercelinta ah oo isugu jira tab xirfad iyo aqoon guud. waa u ciid askari walba oo goordhow ku talamaya talow mabiri mise toddobaadkan baa tababarka lagu soo xirin oo hamoon u qaba badbaadinta shacabkiisa. Waxaan marna maankiisa ka go'in afkiisana oo ku hadaaqa wadani dhaartay baan ahay dhulka aynu leenahay dhaadanayaayo dhiigga wuu huraya waan ku dhaxalkii awoogay dhurwaayada cunayana kama dhuumanayay waan ka dhiidhiyeeya iyo ereyo badan oo goodi cadow iyo gowraci ah. goorsheegtu waxay qaraacaysaa abbaare 7 duhurnimo bacdal qado waa ciidanka oo u kicitimay dhulka bannaan iyo buuraha magaalada si ay ugu soo qaataan casharo dheeraad ah una soo indha-indheeyaan amni ahaan duleedka xerada iyo bannaanka magaalada. geeshiyaan hurdada ku gamaynayo gumuciyo rasaas sumuciyo kataan gumuciyo rasaas sumuciyo kataan geesigan kalaabani kaadadow dhigo gumuciyo rasaas sumuciyo kataan sumuciyo kataan geesigan kalaabani kaadadow dhigo iigashe abaal inan gudo wanaag iigashe abaal inan gudo wanaag way gudboontahay iigashe abaal inan gudo wanaag iigashe abaal inan gudo wanaag way gudboontahay haguban hagaban hagaban haguban hagaabsan gaadhayaa dalku haguban hagaban hagamin haguban hagaabsan gaadhayaa dalku geedhadhaacaho midha laga gurtee kaashan dhigo goyaha ka joogsada gubanimaadua geedhadhaacaho midha laga gurtee kaashan dhigo goyaha ka joogsada gulufiyo colaad gabagaba dagaal gulufiyo colaad gabagaba dagaal geesigan kalaabani kaadadow dhigo gulufiyo colaad gabagaba dagaal gulufiyo colaad gabagaba dagaal
hagaabsan kaan hayaa dalku haguunan hagaban hagabin haguunan hagaabsan kaan hayaa dalku haguunan hagaban hagabin haguunan hagaabsan kaan hayaa dalku haguunan hagaban hagabin haguunan hagaabsan kaan hayaa dalku wadani daartay baanahay dhulka aynu leenahay waan ku dhaadanayaayo dhigowa huraya wadani daartay baanahay dhulka aynu leenahay waan ku dhaadanayaayo dhigowa huraya dhaxalkii awowgay dhurwaayadu cunayaan kama dhumanaye wanka dhiidhiyaayan dhaxalkii awowgay dhurwaayadu cunaayan kama dhumanaye wanka dhiidhiyaayan kuwa dhagarta galaye intuu ciidda kala dhigay miinada dhex dhigayow waqtigii dhammaayey waqtigiinii kuwa dhagarta galaye intuu ciidda kala dhigay miinada dhex dhigayow waqtigii dhammaayey waqtigiinii adhadalatay baanahay daayihii dalkaanay dhidirkan ku arkana marna dhaafi maaye yor dhabarkaan jabinaya adhadalatay baanahay daayihii dalkaanay dhidirkan ku arkana marna dhaafi maaye yor dhabarkaan jabinaya kadheeraday diintow dhalanta ka beentiyo shakadii dhammaatee dhulka maad gelaysaan dhaqanlawayaashii kadheeraday diintow dhalanta ka beentiyo shakadii dhammaatee dhulka miyaad gelaysaan kani waa qoysyaal dhuldaaqsimeedka afaafka hore ee toga xorgoble oo aan ku sii marnay intii aan ku guda jirnay indha-indhayntii aan markii horeba u baxnay balse bariidin iyo dardaaran waxba uma dhaafin oo wakhtiga ayaa nagu yaraa حاول تقرأ. في عندك ايه ما شاء الله. هاي لا مش نقول معي. ها ايه ما شاء الله. لا لا بدي اسمع حفوه. حاول. حق عمودك يا حق. ما شاء الله. ايه دود ويه. ودك ما كان سبينا. حاول كمان. ايه هذا الوسخ ايوه. وينك يا هي الله يوحي على تارو قندي بدل نص الشيء. هي استقد كان تقول انا مروب عليك. هي دالي. ان شاء الله باذن الله. هي kolay waa dhibkiino idinku dhaawiciine hadday dhalatay nabadii macibkaa dambali hooy macibkaa dambali runbaa soo dhawaato xaqiibaa dhalaale dhaagaar qaba ha muuqdo madhadhaabyadaad geli soo dhawaato xaqiibaa dhalaale
kuwa dhameeyo dhiigya cabdalaan cune idinka nabad ka dhaartee dhulgariir ma idinku dhacay dadka kuwa dhameeyo dhiigya cabdalaan cune idinka nabad ka dhaartee dhulgariir ma idinku dhacay dhulgariir ma idinku dhacay dhulgariir ma idinku dhacay diidaye wanaaga doonayow xaqayagiina duudsiyay kuwii dilaaciyow kuwii xumaha diidaye wanaaga doonayow xaqayagiina duudsiyay kuwii dilaaciyow xooga dalkow xooga dalkow xooga dalkow xooga dalkow xooga dalkow xooga dalkow dalkii iyo dadkii iyo caalankaba daryeeshay dalkii iyo dadkii iyo caalankaba daryeeshay rabbi haydaaye waydin dabagelaynaa rabbi haydin daaye waydin dabagelaynaa daalimayne daalimayne rabbi haydin daaye waydin dabagelaynaa rabbi haydin daaye waydin dabagelaynaa daalimayne daalimayne kuwii xumaha diidaye wanaaga doonayow xaqayagiina duudsiyay kuwii dilaaciyow kuwii xumaha diidaye wanaaga doonayow xaqayagiina duudsiyay kuwii dilaaciyow xooga dalkow xooga dalkow xooga dalkow xooga dalkow xooga dalkow dhulkeennu waa dihin yahe wabiyada dilaaciyo dhulkeennu waa dihin yahe wabiyada dilaaciyo haddanoo diraysaan annaga diyaaro haddanoo diraysaan annaga diyaaro diidi mayne diidi mayne
haatan goorsheegtu waxay qaraacaysaa 9kii iyo rubi indha-indhayn amni iyo soo bandhigid xirfado iyo tabo dagaal oo kala duwan oo ay ku soo bandhigeen ciidanku duleedka magaalada. waxaan si nabada ugu soo laabanay booskii aan marka horeba ka kicitinay ee xerada Xorgoble. xaqayagiina dursiyay kuwii dilaaciyo kuwii xumaha diidaye wanaaga doonayo xaqayagiina dursiyay kuwii dilaaciyo gudashada waajibka alle tukashada salaadii casar kadib waxaa inoo bilowday bandhigii guud ee ciidanka. digta aad maqlaysaa ma aha onkod iyo oofar roob ee waa odobdhaxaadkii adimadu ku taagnaa arligeennu oo gaada ciyaar iyo gaardi soo bandhigaya. ciidamadii dhulku adhiiranayaal codso dhuunta iyo cadow dood ku yimid kuwa naga dhashay aan ku dhaadano dhiiranayaal dhacdayaab labay dhagtu maqashayo waxaa timi dhaaraan kii dhiglo ciidow dhashiyo kii u dhaartay qarankuba dhiidiyeen adhiiranayaal ciidamadii dhulku adhiiranayaal ciidamadii dhulku adhiiranayaal codso dhuunta dhaaraan kii dhiglo ciidow dhashiyo kii u dhaartay qarankuba dhiidiyeen adhiiranayaal ciidamadii dhulku adhiiranayaal dhibsadoo ka kaca adhiiranayaal dhibsadoo ka kaca adhiiranayaal dhibsadoo ka kaca dhiiranayaa dhibsadoo ka kaca soo bandhigidda ciidanku uu soo bandhigay xirfadooda aadka u sarraysa waxaa garab socday taageeraha iyo hambaliyeynta shacabka oo mar walba weero dhiirigelina dhagaha ugu shabiyey. dhulkayagi maqnaa cadaawuu dhacay kaan ka dhowraye dhulkayagi maqnaa cadaawuu dhacay kaan ka dhowraye anigoo dharaan dhacsan karaawo shaafigiya ku dhowraaya darisaduu dhagar kaliyo dhaani la yimiya dhuunta jaro dhabti waa mid gara qofkii dhowrsaday doqontu isdhahda waa dhuuhay dhaxalkiisa buug sida waxa ka dhigan dhulkayagi maqnaa cadaawuu dhacay kaan ka dhowraye dhulkayagi maqnaa cadaawuu dhacay kaan ka dhowraye anigoo dharaan dhacsan karaawo shaafigiya ku dhowraaya darisaduu dhagar kaliyo dhaani la yimiinaan dhuunta jaro dhabti waa mid gara
cadow dhadhamine yaan cadow dhadhamine You dhadhami, you dhadhami, you dhadhami ayuu dhadhamin Kadhacso you dhadhami, you dhadhami ayuu dhadhamin You dhadhami, you dhadhami, you dhadhami ayuu dhadhamin Kadhacso you dhadhami, you dhadhami ayuu dhadhamin Idinkow dhasho laydin dhisayaan cadow dhadhamine yaan cadow dhadhamine Idinkow dhasho laydin dhisayaan cadow dhadhamine yaan cadow dhadhamine Idinkow dhasho laydin dhisayaan cadow dhadhamine yaan cadow dhadhamine Idinkow dhasho laydin dhisayaan cadow dhadhamine yaan cadow dhadhamine yaan cadow dhadhamine Idinkow dhasho laydin dhisayaan cadow dhadhamine yaan cadow dhadhamine yaan cadow dhadhamine Kadhacso you dhadhami, you dhadhami ayuu dhadhamin waxa aan u dhaarto dhammaha waxaan baarsaday booshka dheega ugu xidhay booshka dheega ugu xidhay waxa aan u dhaarto dhammaha waxaan baarsaday booshka dheega ugu xidhay booshka dheega ugu xidhay dhinacayga jiifkiyo uga dhowray raaxo dhaldhalaalka dhaldhalaalkii uga jaray dhinacayga jiifkiyo uga dhowray raaxo dhaldhalaalkii uga jaray inan dhowra ciidiyo midnimada dhulkaygoon caddawu usoo dhicin usoo dhicin caddawuhu usoo dhicin usoo dhicin inan dhowra ciidiyo midnimada dhulkaygoon caddawu usoo dhicin usoo dhicin caddawuhu usoo dhicin usoo dhicin dhaagar qabad ku duuliyo ruwaayada shisheeyaha baabartow ma dhigane buntland way iska dhiicisaa buntland way iska dhiicisaa buntland way iska dhiicisaa dhaagar qabad ku duuliyo ruwaayada shisheeyaha baabartow ma dhigane buntland way iska dhiicisaa buntland way iska dhiicisaa buntland way iska dhiicisaa waxa aan u dhiiraday dhammacdiyo dagaalada dhibta ugu adkaysta dhibta ugu adkaysta waxa aan u dhiiraday dhammacdiyo dagaalada dhibta ugu adkaysta dhibta ugu adkaysta kuwa dheeligan jecel mar kastaba dhafoorkiyo dhaadadkowga dhaadadkowga toogta kuwa dheeligan jecel mar kastaba dhafoorkiyo dhaadadkowga
handhaadadka uga toogtaa inan dheeha qarannimo daxashu u dhowaano hay dhalaasha nabaduna hay dhalaasha nabaduna dadka ku jira guriga waxaa idinku wareegtay ciidankii ammaanka puntland dhammaan dooda u soo baxay kor wad gama warya kor qaada gama kala fogay labada lugood halkaa qoraxda u dhacda u jeesaday ninka qoraxda axiga gacantaada midigta u soo sidaa waxbaa ka bedel sidaa ku soco soo fogay labada lugood dhammaan kor qaad ninkaan daabka iligsataan gacantaada midigta u soo adoo gacmahaa kor qaadaya taag kala fogay labada lugood gacmaha kor qaad ciidankii baaritaanka waajibaadkiina kusha dabka dhinac isaga kor qaad gacan kartag dawaaxin sidaada ha ka dhaqaaq kartag كرغت كهر النهكاي نعم قبوي نمعي برواقي فبلغونا كريم واضحنا وصبحنا نعسو قميسيقن نبردا قرصونيو نعانيقا هدينيو يقول بينا فضا نبردا ما وداقي نذربان هرو قلي نيديد وامن نذربان على خير نور الله نبت قالي نذربان هرو قلي نذربان هرو قلي نيديد وامن waxaanahay darwiish dalka iyo dadkiisaba u diyaar garoobo dabka aan dhigayne waxaanahay darwiish dalka iyo dadkiisaba u diyaar garoobo dabka aan dhigayne dadweynow dadaal ciidankow difaac dadweynow dadaal ciidankow difaac war dalka dadka diinta waa daafacaynaa war dalka dadka diinta waa daafacaynaa dowladaha horu maraysan caday dabaalayaan ninna hooya kuma diihan dadweynow dadaal ciidankow difaac war dalka dadka diinta waa daafacaynaa
C2 C3 C2 C3 C4 كنغو نست بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan salaamayaa dhammaan taliska iyo maamulka dugsiga tababarka ciidamada ee xorgoble macallimiinta bahda saxaafadda oo galabta halkaan nagu soo booqatay ilaahay baa mahad leh waxaan ku soo jirnay tababar adag oo aanu u furnay 3 urur oo meeshan la isugu keenay 22kii Abriil 2020 kuwaasoo kala ahaa ururkii hore loo oran jiray 22aad ururkii loo oran jiray 3aad iyo urur loo oran jiray 13aad halka markii la isugu keenay oo madaxda dawladdu ay u furtay gaar ahaan taliyaha ciidanka iyo guddiga dibadhaynta ciidamada Puntland oo madaxu yahay wasiirka maaliyadda iyo madaxweynahoodna soo booqday waxa loogu magac daray ama loogu waqalay ururadii markii la isu keenay la mideeyay urur la yiraahdo ururka Badar ururkaas oo ah urur aad iyo aad difaaca Puntland uga qayb qaatay qayb lixaad ka qaatay kana dagaalamay min gaalkacyo ilaa iyo qandala ilaa iyo buuraha galgala halkaan tababarka markii loo furay 22kii Abriil laga bilaabo ilaa iyo maanta tababarka gabagaba uu yahay waxay qaateen casharo aad u fara badan oo isugu jira tab iyo xirfad iyo aqoon guud saacadaha aanu siinay madaba xilliga Ramadaan uu ahaa oo aad u adkayd iyo juhdiga badan oo la geliyay darteed ilaahay wuxuu noo suurta geliyay inay ka soo baxaan wax lagu naaloon karo oo aad muddo Puntland iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeedba ugu aayi doona hadii Rabbi qadaro insha Allah waxay qaateen 183 xiisadood oo xirfad ah waxay qaateen 254 xiisadood oo tab dagaal ah waxay qaateen 125 xiisadood oo aqoon guud ah oo lagu barayo shuruucda ciidanka xeerarka xuquuqda insaanka badbaadada bini'aadanka iyo goobaha dagaalka markii la joogo waxaan meesha ku jira u qaybsanayeen jimicsi iyo jirdhis gaardiga iyo salaamaha waxa kale oo meesha ku jiray qaabkii goobaha dagaalka looga qayb gali lahaa oo la tigi lahaa goobaha dagaalka oo ugu horeyso habka goobaha dagaalka markii la joogo tilmaansiga ama yoolka hubinta humaaga jaangoynta masaafada qaab socodka goobaha dagaalka roondooyinka dhaadheer ee gawaarida iyo lugtaba isugu jira qaabka looga falceliyo xaaladaha degdegga ah marka la kulanto caqabadaha iyo weerarada gaadmada ah waxaan barnay qaabka loo dhigto difaaca qaabka loo qaado weerarka qaabka loo sameeyo dib u gurashada waxaan barnay qaabka roondooyinka magaalada looga rondeeyo waxaan barnay CQBT oo ah qaabka loo galo guryaha meelaha cadawga lagu tuhmaayo ama qaraxyada lagu tuhmaayo waxaan barnay qaabka yoolka looga wareego wadagoynta habka gawaarida loo baaro ama gawaarida loogu rondeeyo magaalooyinka iyo meelaha baadiyaha labadaba waxaan barnay habka guryaha loo baaro habka loo ilaaliyo madaxda waxaas oo dhan waxa daba socday qaybta dhisidda iyo adkeynta anshaxa iyo discipliinka ciidanka maanta meesha ciidanka aanu soo bandhignay oo arkaysaan aqoontu soo bandhigay waa ciidan alle loogu mahadiyo kadibna macallimiintii iyo maamulkii gacanta ku hayay ay ku mudaysan doonaan adduun iyo aakhiraba mid Rabbi ugu abaalmariyo waxaan oo ay muujiyeen dadaal hagar la'aan ah hadda waxaanu joognaa gabagabadii waxaanu rajaynaynaa wixii la baray oo iyo waqtigii la geliyayba inaanay meel cidlaah ku bixin ee looga aayi doono marka ay tagaan goobaha looga baahan yahay cadawga bismillaah salaatu wasalaamu ala rasuulillah awalan marka hore ilaahay baan u mahad celinayaa noo suurto geliyay inaan halkan galabta ku joogno caafimaad marka labaadna waxaan u mahad celinayaa madaxweynaheena Dr. Saciid Cabdullaahi Deni ee dawladda hadda joogta oo dugsiga kan asaastay Xorgoble aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxaan kaloo u mahad celinayaa halkan guddigii dooxbaynta dibdhiska ciidamada madaxweynuhu xil saaray oo ugu horeeyo wasiirka maaliyadda wasiirka amniga iyo taliyaha ciidanka guud ee Puntland bahda saxaafadda waxaan kaloo halka aad si gaar ugu sii mahad celinayaa macallimiintii dugsigan ka howlgashay dugsiyo horena hore uga soo howlgashay oo ah macallimiin xirfad leh mahad celin kadib halkan waxa weeye waa dugsigii Xorgoble runtii waxa weeye annagu ka maamul ahaan markiina ku wareejiyay sanadkan horaantiisii bishii January 9keedii waxaan u bedelnay in uu shaqeeyo dugsiga habka waxa weeye dugsiyada caalamiga ah oo u shaqeeyo taas ayaana kalifaysa in ardaygu waxa weeye ama askariga soo gala uu noqdo waxa weeye askari xirfadiisu waxa weeye aad u sareyso oo ka duwan askartii hore oo waxa weeye wadanka hore uga jirtay
taana mahadcelinteeda waxaa iska leh dowladda hadda jirta oo garatay in waxa weeye dugsiyada dib loo asaaso oo dugsigan hadda hormuud ugu yahay runtiina waxa weeye taa haddii aan la samaynin ciidan saan u dhisan lama helen marka insha Allah waxaan rajaynaynaa insha Allah in haddii la koriyo dugsiyada kale oo dugsigan la midkaan ay saan oo kale u shaqayn doonaan sida hadda dugsiga baran oo asna shaqeeyo ciidan ku xariisan yahay intana afraad iyo kuwa dambe hadda dib loo furi doono oo sida Boocame iyo meeshan la yiraahdo Abqaale runtii taasna waxaan rajaynaynaa in dugsiyada iyaguna ay soo gaaraan oo ay u shaqeeyaan iyaguna standardka heerka caalamiga ee dugsiyada laga rabo inta kadib dugsiga hadda waxa dafcadda ku xareysan waa dafcaddii Badar oo dhawaan aan rajaynayna inay qalin jabiso xirfadda ka muuqata iyo tababarkooda iyo heerka u gaarsan yihiin waa daawanayseen waxaan rajaynaynaa in kuwa ay noqdaan dalkooda iyo diintooda iyo ummadooda tababarka ay ku difaaci lahaayeen oo waxa ah waajibaadkii laga rabay insha Allah in waxay noqdaan inay difaaci doonaan baan rajaynaynaa bahdina saxaafadda intayda halkaan ku soo booqateen aad iyo aad baan ku mahadcelinaynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.